beesha Odasuga Cumar oo kamid ah beelweynta Saruur ayaa maanta magaalada Muqdisho waxay ku qabteen kulan muhiim ah oo ka koobnaa laba dhinac oo kala ah hambaliyada iyo sidoo kale u duceynta suldaanka cusub ee beelweynta Saruur Suldaan Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Ciroobe iyo sidoo kale kulamo isxogoreysi ah xubnaha ugu muhiimsan beeshan ay la yeesheen suldaanka guud ee beesha Saruur kaas oo ku wajahan sidii wadada horumarka loogu jeexilaa beelweynta Saruur iyo sidoo kale midnimo guud oo beesha lagu soo dabaalo kulankan waxaa ka soo qaybgalay xubnaha ugu muhiimsan ee beesha ku sugan magaalada Muqdisho kuwaas oo kala ah odayaasha dhaqanka aqoon-yahano siyaasiyiin culimo u diin haween dhalinyaro iyo sidoo kale xubnaha kale ee beesha ay ku sugan magaalada Muqdisho ugu horeyn mas'uuliyiin kala duwan oo kulankan ka hadlay ayaa waxay hambaliyo duca u direen suldaanka cusub ee beesha Saruur Suldaan Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Ciroobe oo kulamo lagu soo dhaweynay ka dhaceen magaalada Muqdisho iyo sidoo kale qaar kamid ah gobolada dalka iyo dalka dibadiisa kulankan muhiimadiisa waxa uu ahaa hambaliyada iyo ducada beeshan oo kamid ah beesha ugu horeysay ee soo dhaweysay suldaanka guud ee beesha sidoo kale maanta u sameysay kulan guud oo si buuxda beesha ugu taageerayso maanta tusbax go'ay baan nahay ilaahay waxaan ka rajayn ummadan shakhsiga midayn lahaa inuu alla ka dhigo wax annaga noo gaara burburkaas ummadda Soomaaliyeed ku dhacay ma aha waxaad maqlaysaa adiga oo hawiye dhex socda hawiye leh boqor waxaad maqlaysaa kelmada cusub oo ku cusubba dhaqanka hawiyaha maxaa kalifay waxa kalifay dhaqankii baa wuxuu noqday shaqo in lagu shaqo tago ceeb waxa ah qof dhaqankaagii ah inuu madaxda waddanka inta u tago gacanta u hoorsado oo waliba inta la qaabilin laga soo celiyo meeshii uu tagay waxaan ka hadlayo waa aragnimo weyn xildhibaankiinii hore ayaan ahaan jiray aniga aad aan uga warqabaa waxa ka socda waddankan siyaasadiisa shiiqaagii ummadda ugu mudnaa ee waxa uu yiraahdo aan xaradheere waxba la iska weydiin jirin oo gacanta hoorsana ee aan laga qaadayn waxa uu sheegay ilaahay waxaan ka baryayaa ummadan ummad waxay ahayd nadiifa oo akhlaaq leh ku kala dambeeya dhaqan iyo diin احترام كل نوليهين ومد للدرس كأه إن إلهي أو كسر عليه وضاس سلطان كعصبنا إلهي وأفضله سلطان كباش السرور وعكون جولستي إنه هجان هبر قدر نقضاء هدانا كسي الطلاب الدون وحنو ملايين وهوير نقضاء مركا الحمد لله شوف رب العالمين ويقولوا جاري سلطان كباش السرور أو أهن عالمة علماء أو يهنا أن وفرحني markii suldaannimada loo doortay ilaa maalinkan maanta oo la joogo waxa waaye suldaankeena waxa waaye baalkii maxay amaantiisu waa baahan tahay meeshaan lagu ma soo koobi karo alxamdulillah shukr rabbil caalamiin waxa rabaa inaad meeshaas aad ka sii wadaan hawsha suldaanka waxaan ugu duceeynaa ilaahay inuu la garab galo arintaas inuu la garab galo ilaahay matana inuu u fududeeyo qadaabadana qalbigeeda ilaahay inuu isu dumo محافظ معارض بإلهي قلبه وصدمه سلاسان إلهي نكجيهنا كنا دويهنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan mahadeen iska walaashay fartuun abshir doore oo igu casuumtay markii xigta waxa aad soo dhaweynayaa suldaankeena suldaan maxamed sheekh maxamed ciroole suldaan sheekh cabdiraxmaan sheekh maxamed ciroobe suldaan soo dhaweey halahan oo tolkeyga maanta inaa bartoorto ugu faraxsanahay markii xigta waxa ku faraxsanahay inaa ka soo qayb galay tolkeyga Odasuga Cumar gogasha ee suldaanka u fidiyeen oo ku maasantiin ninkani suldaankan waxa leenahay suldaane ciidan ka ma jiifine hadeer ku soo garab istaageen ilaa intii waa soo soconay markii intaas laga soo tago way maasan yihiin gabdhaha walaalahay oo ay wakiisheen suldaanka waxa ka codsaneynaa maadaama adduunka oo noqday jandar inaa gabdhahan si qaas ah inaa uga warheysid oo qof aysan noo dhaxeynna waa ka codsaneynaa insha Allah سلطان عبد الرحمن شيخ محمد عروبه وسلطان كجود سرور وحن لا يهي
dadku dhaqan soo jireenuhu lahaa waa la yaqaanaa nin waliba wuxuu ahaa iyo wuxuu ku fadhiyey iyo meeshuu saruur uga jira waa la yaqaanaa maanta dadka halkan fadhiya dad aan saruur ku dhex magac lahayn oo aan maamuus ku lahayn oo aan sumad caanihi ku ool ma fadhiyo halkan waxaan leenahay dadka naga maqan oo saruur ama Cumar Ibraahim ama Odo Suga Cumar walaalayaal dabayshu dhinacay u socotaa loo jeestaa marka suldaanka hala garab istaago yaanan meel ku xirnaan dad qol ku xiran oo aan maslaxad saruur ka shaqaynayn oo tooda fiirsanaya yuusan saruur u dhibaatoobin asha iyo da'du muhiim maahan hadda ka hor sheeko waxaa maqlay iyadoo odayaal ay geed fadhiyaan oo arrin loo xaajo loo fadhiyaa qayl soo yeertay waagi hore qaylo telefoon iyo ma jiri jireen waa waree qaylad markii soo yeertay wiil yaraa geedka saaraayo odayaashana xaajo muhiim ay u fadhiyeen markaas waxaa la yidhi arwaayeel hala diro markaas wiilkeeda wuxuu waayeel yaan la dirina wax garad hala diro garadaan u baahannahay culumaan u baahannahay dad reer magaalahaan u baahannahay ummaddan fursadda ay maanta haysto inaan la baardareena u baahannahay suldaanka mar kale iyo dardaaran uu ka dhan yahay laakiin dadkan inay iskarabsadaan iyagoo qalbigooda u midaysanaya loo baahan yahay suldaanku far kaliyu fool ma dhaqdo inuu muxuu ahaa dadka baahida saruur u tabiyo inuu horta uu ka warqabo oo dadka xogogaalka ah waraysto oo yiraahdo maxaa baahidu la eg tahay baahida tacliimeed maxay la eg tahay baahida maaraysa waxbarashada aan sheegaya maxay la eg tahay baahida kaleeto oo maaragtay muxuu ahaa maxay la eg tahay caafimaadka maxay la eg tahay baahida biyood maxay la eg tahay baahida guud maxay la eg tahay dadka shiikha isagoon intaan magaranaysaa isagoo ka dhalin yar oo garaadkan ama magaranaysaa ama muxuu ahaa maksabkan hadda aan lahayn ayuu masaajidka jowle oo magaranaysaa fuustooyin ah ayuu dhisay oo uu noo sameeyey oo uu gacan kale ka dhisay oo naqaleed bahaysan misana agoon buu urushay waa ogsan tihiin agoon buu urushay 100 caruura ayuu agoona hal aruushu yiri dad baa waxay qabaan muxuu ahaa jifay ahaayeen jifa inaysan ahayn baan anigu cadaynayaa saruur bay ahaayeen waxa weeye mid kale oo aan sheegayna waxa weeye waa iska jirtaa ugu dambeyn waxaa kulankan soo xiray oo hadal qiimo badan ka jeediyay suldaanka guud ee beelweynta saruur suldaan Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Ciroobe oo kulankan soo xiray waxa uu sheegay inuu u mahadcelinayo xubnaha guud ee beesha waxaana inta ku daray in ducada beesha uu meel wanaagsan ku gaaray waxaana ballan qaaday inuu ka shaqeynayo midnimada guud ee beesha waxa weeye waa gunnimo nin baa baarta laga sheegay war aniga gunnimo ninna kula tartami maayo waxa weeye haddii qof maaragtay uu dhinac u hadlaya uu maaragtay dad tol ah oo ahal ah oo qaraabo ah u gafo wuxuu mudan yahay in asaga lagu gaar yeelo godob ninkeeda lagu gaar yeelaa looga naseexeeyo lagala taliyo laga wacdiyo laga waaniyo codkiisana aan qofna loo qabanin way meel kasta ka soo jeedo cid wax kala tabanaysa haday jirto ama cid wax qabta waxaan hubaa inay dhamaanayso oo walaalnimo la ahaanayo oo laabta la isku xaaranayo waxaas hari doona qofkaas ku gaar noqon doona warkii asaga ka tagay asagu ku gaar noqon doona dadkii israacay oo ismaxabaystay oo isla socdana bari uu arki doona maalintaas ka shalaynaya hadii Ilaahay raad marka qof siyaasiyad u hadlayso bari Ilaahay agtiisa waxba kaaga ma tari doono qof kale oo dhaqanood uga waxayn doonto Ilaahay agtiisa waxba kaaga ma tari doono qof walba wuxuu asaga geysto jufa uu hadlay bari waxba Ilaahay agtiisa uga ma tari doonto asagoo wahiidan munfaridan ah ayuu rabbigiis hortaagaya erayga uu ku hadlana waa la weydiinaya waxyaabaha ugu cajiibsan waxa kamid ah maanta walaalayaal zamankii hore kala ma waxa laga yaabaa kelimada qofka uu ku hadlo ama uu soo qoro inay aafaaqda iyo caalamka ay gaartaa laga yaabaa waxa laga yaabaa inuu dad badan ku jaa'ifeeyo waa idinku dheereeyay waqti dambana waa tahay laakiin waxaan ku soo gabagabaynayaa
waxaa laga yaabaa khayr fara badan uu asagu lahaa kelmadaas uu yiri inay galaafato khayrkiisii xasanaadkiisii ay galaafato nabigu wuxuu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiraahday dadka qaar ayaa maalinka qiyaamaha waxay la imaan doonaan maartay acmaal fara badan la imaan doonaan oo min salaatin wa siyaamin wa zakaatin buuro iyadoo ay la imaanayaan oo markii la arko waxa khayr qofkan uu wato qof walba uu leeyahay kan jannada kabaha looga siimi maayo suldaanka intii la doortay kadib waxaa jira kulamo isdaba jooga kuwaas oo guud ahaan dalka iyo dibadiisaba ka qabsoomay oo lagu garab istaagay suldaanka Maxamed Ruuray FM Somali TV Muqdisho. IBS Bank waxa uu ku hayaa kaarar caalami ah oo aad kala bixi kartid lacagtaada adduunka meel kasta oo aad tagto waana bangiga kaliya ee bixiya adeega Visa Card guud ahaan dalka. Noocyada Mastercard ee ka helaysa IBS waxa kamid ah Classic Mastercard iyo Well Elite Mastercard. noocyada Visa Card ee aad ka helaysa IBS na waxa kamid ah Classic Visa Card iyo Infinite Visa Card.